magacaaga walaal ku bilaabaya in Hargeysa maxaad ka qaban jirtay? Hargeysa waxaan ka qaban jiray sambusa aan sameyn jiray meesha la yiraahdo Almadiina halkaas aan sambusa ka sameyn jiray. Adigoo ka shaqeysta halkaas maxaa ka soo keenay? imika waxa ii soo kaxay dhibaatadii imika tibadii ma aragtay ormadii iyo Soomaalida dagaal oo halka ka bilaabay taasana kaxaysay imika haddii aan adiga wax dhibaato ku soo gaadhin maxaad uga soo tagtay halkaagay? dhibaatadii wili ma soo gaarinee laakiin way soo gaari doontaa fikirkayga waa sidaa. imika xagad ku socotaad oo xambaartay alaabtaada iyo gogashaadii? waxaan u socdaa Itoobiya inaan tago marka ayaa ku qaadaya? waxaan qaadaysaa qoladii la yiraahdo migration-ka. adiga ayaa ku soo sheegay halkan migration-ka laga qaadayo oo dadkii Itoobiyaanka dib loo celinayo? waan garanayaa migration-ka markii hore Shaarbaan inaan qaaday waan garanayaa. waxaad ka warantaa imisa sanaad Hargeysa joogtay ka shaqeysanaysay? 8 sano jooga 8 sano. 8 sano aad joogtay tan kala ma ku soo martay maanta dib ugu noqonaysay dalkaaga? ma weligii ma soo marin oo maanta igu horeysay. bal waxaad ka warbixisaa markii hore sifahaad ku soo gashay magaalada Hargeysa? waxaan ka soo galay xagga dhinaca Wajaale ka soo galay